dhegaystayaal dhulka soomaalida oo adduunkii hore lagu magacaabi jiray dhulka punt haatanse soomaaliya loo yaqaanay wuxuu ku yaalaa kobta geeska loogu yeero oo dhaca cidhifka ugu dambeeya afrika waqooyigeeda bari. xagga barigu waa dhul hooseeya oo kulayl badan, waqooyiguna waa banan iyo buuro aan waxbeerista ku fiicnayn, inkastoo ay ka jiraan dhanka biyaha iyo daaqa meelo ku yara roon, kuwaas oo ku teedsan biyo mareennada aaraaba qalalan ee togoga lagu magacaabo. wuxuu dalku leeyahay laba webi oo Jubba iyo Shabeelle lagu kala magacaabo, kuwaasoo dhex qulqula gobollada koonfur galbeed oo ah dalka oo idil meelaha ugu dheeraysan ee kaymaha ballaahi ay weli ku dambeeyaan. dhinaca xeebaha waqooyiga waxaa ku yaal buuraley silsilad ah oo golis loo yaqaan, taas oo taxan laga soo bilaabo raas casayr iyo meesha ay baduhu isaga darmaan ilaa dhulsaraadka Amxaarada. sida la og yahayna buuralaydaas halka ugu dheeri waa buurta Surrada Cad lagu magacaabo oo jooggeeda lagu sheegay ku dhowaad 8,000 oo cagood. magaalada Berbera ayay dhanka bari kaga beegan tahay, qiyaastiina 150 kilomitir ayay u jirtaa. dalka intiisa badan cimiladiisu waa midda kulul ee lagu yaqaan agagaarka deegaanada dhulbaraha ku yaal. guud ahaanna heerkulkiisu wuxuu u dhexeeyaa 80 ilaa 110 darajo oo ah qiyaasta Fahrenheit-ka. 4 nur ama 4 xilli ayay Soomaalida sanadu ugu qaybsan tahay. waa gu, waa xagaa, waa dayro, waa diraac. guga iyo dayrta oo keliya ayuunbaa cirka laga sugaa roobabka ugu waxtarka roon ee geyiga ka da'a, inkastoo ay yihiin kuwo aan sidaa usii badnayn. sidaa darteedna aan isku halays lahaynoo waaye la helo waaye kalena baaqsada. taasina waa sababta ay biyuhu dalka ugu yar yihiin ee daaquna uu gabaabsiga ugu yahay. waa isla sababta ay abaaruhu ugu soo noqnoqdaan ee kolkii waa la joogaba ay xoolaha iyo dadku u baaba'aan. taariikhda Soomaalida waxaa weli lagu xusuusan yahay magacyadii loo bixiyey abaaro ba'an oo xilliyo kala duwan dalka soo maray, sida haadiya, xaaraama cuna, hawaara, gaadaweyn, hargacuna, mugweyn, dabadheer, baastaaley iyo kuwo kale oo dhaxba tirada dadweynaha aad u kala dhantaali jiray. xagga sayniska iyo culumta deegaanka markii laga eego, waxaa jira sababo la yaqaan oo dartood ay abaaruhu ku dhacaan, kuwaasoo xaalufka dhulku uu ugu weyn yahay. hase ahaatee ummadaha diinta islaamka rumaysan oo ay Soomaalidu ka mid ka tahay waxay qabaan inay jirto sabab kale oo kuwaa ka weyn darteedna ay abaartu ku timaado. waxay qabaan inay ka mid tahay hababka uu eebbaweyne aadanaha u ciqaabo, siyaaraha uu u abaal mariyo markii ay ka leexdaan waddadii uu u jeexay, ee waxyaabihii uu faray ay fartoomi waayaan, kuwii uu ka reebayna ay ka reebtoomi waayaan. sida qur-aanka meelo dhowra kaga xusanna, cirka oo dhibcihiisa lagu celiyaa waa ciqaab eebbe, dhulka oo caws iyo midho dhali waayaa waa ciqaab eebbe, xoolaha iyo dadka oo gaasirmaana waa ciqaab eebbe. abaartuna waa intaas uune meel kale ha ka doonin. haddaba Soomaalida oo muslim wada sheegataa kolkay abaari ku dhacdo maxay samayn jireen? way isu soo bixi jireenoo wadajir bay u allabari jireen. yar iyo weyn, culimo iyo caamo, rag iyo dumar, bandiiran bay isugu iman jireen. daanku qalinlaha hamigiisu dugsi qur-aanka ku xiran yahay ayay goobta soo taagi jireen, oo isagaan weli dembi loo qorine intay looxa madaxa u saaraanoo qorraxda joojiyaan ayay ka codsan jireen roob khayr leh dadka iyo duunyadaba inuu eebbaweyne u weydiiyo. isla goobtaas ayaa salaada roob doonta loo yaqaan lagu tukan jiray. halkaas baana inta la ducaysto lagu kala dareeri jiray, iyada oo deeqda eebbe aad loogu rajo weyn yahay. ardada qur-aanka iyo wadaadada ka sokow gabyaaga ayay maalintaas oo kale weydiisan jireen, isaguna inuu eebba bariyo
hibada gaar ahaanta loo siiyey ee maansada ahna uu ku baryo. bulsho ahaan waxaa ka dhacdhacsaneed rabbi agtiis in gabyaagu uu weji ku leeyahay oo sida habaadkiisa loo aqbalo ay u dhowdahay in ducadiisana la aqbalo. sidaas baa waxaa ku abuurantay haba tiro yaraatee maanse roobdoonta ku saabsan, taasoo qaybo ka mid ah barnaamijkan iyo qaar xigi doonaba aan ku soo qaadi doono. aan u horraysiiyo cali xuseen xirsi oo ku caanbaxay maansooyinkiisii gobonnimo doonka u badnaa uuna tirin jiray xilliyadii madax bannaanida dalka halganka loogu jiray. haddaba goor aan ku wado inay ku beegan tahay horraantii 1960-nadii, shaban ay abaar darani dhulka wada saabatay, ayaa cali la weydiistay gabay roobdoona inuu eebba ku baryo. isna wuu yeelay, inkastoo sidii ay rabeen aanu arrinta u abbaarin. waxay filayeen intuu gacmaha kor u taago inuu eebba dhab ugu baryo, iyaguna ay aamiinta ku kaalmeeyaan. ha yeeshee iyagii dhibbanaa ayuuba eed iyo canaan ku asqaysiiyey. wuxuu u sheegay abaarta lagu salladay inay eebba ka mutaysteen aanu ka gardarayn. tixay dulucdeedu sidaa tahay ayuu tiriyey, taasoo uu ku bilaabay su'aal hordhac ah oo ahayd: dadow, haddaan idiin sheego abaaraha sababta keentay, kulayl awgiis sababta dhulkii loo joogi kari la'yahay, gofo roobaad sababta cirkii looga waayey, sababta ay xoolihii u le'deen, sababta gaajada iyo aradku ay ummadda sad ugu noqdeen ee dhirtii ay u engegtay, bananka iyo bannaanada sababta ay ugaartii ugu wada baktiday. wixii ay intaasiba inoogu dhaceen haddii aan idiin sheego, ilaahay ma loo noqonayaayoo ma lagu waantoobayaa? su-aashaasna wuxuu ku yidhi: nimanyow, abaaraha dhiciyo beliya aafaadka, dabka ololi uumiga ka karay aradka guudkiisa, raxmaddii ilaahay waxay noogu iman weyday ee ariya geelii marshay ee ebarka noo saaray, aradka iyo gaajada waxay nagu alhuumeeyey, geeduhu waxay u engegeen, ubaxna loo waayey ee ay ugaadhu u baktiday, ayda midhanaysay eerkaa wixii dhigay haddaan idin ogeysiiyo, ilaahay ma loo noqonayaa? axadki weeyaane. jawaabtii cali uu dadweynihii ka helay waxay ahayd: haayo, eebba waanu u noqon, waanadaadana waxbaanu ku qaadane, barcadow noo sheeg waxa aanu galabsannay oo eebba uu roobkiisii nooga daystay. dabadeedna wuxuu u kala dhigdhigay waxyaalaha ay eersadeen, sida sheegashada islaamnimo iyo ku dhaqan la-aantiisa, iscollaysiga iyo isgardaraysigooda, nacaybka ay uurka isugu hayaan, kala dhaca xoolaha iyo ammaano cunkooda. wuxuu yidhi: haddii ay islaamnima jirto oo la ijtihaadayo, ashahaadda iyo toobadii lama ilaaweyne, ilaahay ma loo noqonayaa? axadki weeyaan. goortay ilma adeeradii uurka ka colowday, igaadh weliba kii xigay markuu dhacay adduunkiisa, goortii ammaanada la cunay, ehelku kuu dhiibtay inkaraadi goortay timi, ee aamin la iswaayey afka buuxi mooye, markay aayar socon weyday inay samadu naga oodantaa, waa abaalmarina, ilaahay ma loo noqonayaa? axadki weeyaan. alalaasku goortuu ka karay or iyo duulaanku nimaan ayra kaa dhicin, markii udubka loo saaray, oofaha markay kala heleen kaalka la afeeyey, goortay asayda u xireen, ooliduu mehershay, maatadu markay ooyayeen loo arxami waayey, markii aabbayaa lagu dilay ee gaban agoomoobay, inay samadu naga oodantaa waa abaalmarine, ilaahay ma loo noqonayaa? axadki weeyaane. sababaha samada looga ooday isaga oo weli dadkii ku baraarujinaya, ayuu kuwii hore ugu daray qaar hor leh, sida barashadii diinta oo afafka shisheeye laga doortay, dhaasta beenta ah ee laga xabsiinayo, xalaashii iyo xaaraantii oo la kala sooci waayey, salaadii oo laga tegay iyo ugu dambaysta shaydaan oo loo hoggaansamay. wuxuu yidhi: axdinimaad ahaydeen markuu oofin kari waayey, aayadaha diintaa markii iida laga doortay, isimkii ilaahay markii la istixayn waayey, ajalkaad cunayseen markii loo abtirin waayey, inay samadu naga oodantaa waa abaalmarine, ilaahay ma loo noqonayaa? axadki weeyaane. aakhiro ilowdiyo jannada aqalladeedii, addimaadda goortuu wadaad idin ogeysiiyo, aadaanka oo yeeray baad orod ku dhaaftaane,
eygii hadduu idin duwaday aadan ba habowshay oo uu ibliis idinku muday shalay iraabkiisa inay samadu naga oodantaa waa abaalmarina ilaahay ma loo noqonayaa axadki weeyaan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo barnaamij suugaaneed kale oo kan oo kale ah hadduu eebba idmo